barnaamijka madasha Shabeelle. Barnaamijka madasha Shabeelle waxaan ku eegaynaa ama aan uga hadlaynaa kaalinta iyo doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ee kaga qaadan karaan ama uga aadan ka qaybgalka siyaasadda. Waxaa marti ugu ah sida daawanaysaanba Mustafa Warsame Sabriye oo ku magac dheer Timo Cadde isla markaana wiil dhalinyaro ah bartay culumta siyaasadda. Mustafa inta badan dhalinyaradu waxay u hanqal taagayaan jagooyinka sare ama ra'iisul wasaare in noqdaan ama madaxweyne ama gudoomiye baarlamaan balse caalamka markaan eegno dadkan aad siyaasiyiinta noqday oo caalamka ama ku soo baxay waxay ka soo bilaabaan meel hoose ilaa hadda ma aragtay dhalinyaro meel hoose ka soo bilaabaya sida degmooyinka oo kale laamaha kale shaqooyin hoose oo dawladda ah kadibna ku taga macnaha ilaa ay heer madaxweyne runtii waxa waaye dhalinyarada in hal cudur ay qabaan qof kasta wuxuu jecel yahay from university to office xafiis inuu yani jaamacadda ka soo tago xafiis dawlad u yimaado taasna ma suurto galayso aniga waxaan aaminsanahay saakii haddaan maanta rabo inaan laamo u shaqeeyo leanna waad karoysaa marka adduunyadana waxa weeye markastoo aad jaranjaro hoose kasoo bilaawdid oo jaranjaro socotay yani markastaba khibraday ku tahay runtii adduunyada waa ogtahay dadka siyaasadda ku guuleystay meel hoose kasoo baxa tusaale Ilhaan Cumar xero qaxootiga ka timid oo Kenya ku taala ayadoo yar baa Mareykanka la keenay yani markii ugu horeeyay golaha deegaanka Minneapolis ku beertay kadibna way taraaraxday oo waxay noqotay gabadhii ugu horeeyay Muslim Congress African madow ah Congress Mareykanka marka jaranjaro jirta marka hadii maanta aysan si directly u noqoleed wax way caqabad bay ku noqoleed hadda madaxweynihii hore Saddam Hussein nolosha meel hoos ka soo bilaabay ka bacay gudoomiye ilaa meel sare u ka gaaray hogaamiye kasta oo nolosha hogaamiye kasta saas buu ahaa ma ahan yani in kastoo dadka qaarkood nasiibku u saacido oo yani darajada hal mar ay meel fiican tagayso haddana inta badan ani waxa aaminsanahay in yani laga bilaabo siyaasadda meesha lowga tusaale hadda gabadha hadda filan wasaaraha ka naqatay oo 30 jirka waxaa la tilmaamay inay ka soo bilowday qaybaha dawladaha hoose ay ka soo noqotay haddana maantana loo doortay inay wadan dhan oo Yurub ka tirsan oo wadamada weynka caalamka horumaray inay wasaare ka noqoto waa qof aad u daayar oo dumar ah marka arrimahaas kale ma aragto maxaa dareenta adiga kan Mustafa ahaan runtii wadanka Finland waa wadan ilbaxa waxay ka soo jeedaa xisbiga Social Democratic Party oo kamid ah xisbiyada ugu daada weyn wadanka Finland taasina waxay cadeynaysaa yani haddana dumarka reer galbeedka